wararkii ugu dambeeyay ee labadii saac la soo dhaafay dagaalka Israa'iil iyo Iiraan. General Ali Shadmani oo horaantii maanta ay sheegeen ciidanka Israa'iil inay dileen laakiinse aan weli la hubin wuxuu ka mid ahaa ciidanka aqoonsiga geesinimo ka helay intii uu socday dagaalka Iiraan iyo Ciraaq. Wuxuu 4 maalin ka hor qabtay xilka ugu muhiimsan ee ciidanka Iiraan isagoo loo magacaabay taliyaha xarunta dhexe ee Khatam al-Anbiya, taasoo ah taliska ugu sarreeya ee howlgalka dagaalka Iiraan kadib markii lagu dilay taliyihii ka horreeyay weerar ay Israa'iil ka geysatay Tehran. Ma jiro ilaa hadda xaqiijin rasmi ah oo la xiriirta geeridiisa oo ay ciidanka Iiraan shaaciyeen. wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Abbas Araghchi ayaa yiri Israa'iil waxay weerartay xarumo shidaal oo ku yaala gacanka, taasoo caddeyn u ah inay rabto in dagaalku sii fido. ciidanka ilaalada gacanka Iiraan ayaa goordhow shaaca ka qaaday inay gacanta ku dhigeen nin u shaqaynaya hay'adda sirdoonka Israa'iil ee Mossad, kaasoo ka howlgelayay xarun xasaasi ah oo ku taala gobolka Ilam ee galbeedka Iiraan sida ay warisay Al Jazeera.